السلام عليكم دمانتين وايدين سلامي أرديدا نوع عصب يكون وحرناين با مانتو عشر كان اللحدان إيسيديدات أونا كسابسان إريادا جيكادا أما kitchen vocabularies إريادا وحان أسو قاتي لقد إريا أديقو برانين لقد ما براني كرتيد مركا وحيكا عاونايان برشدا لقد إريادا جيكادا هاتو تن سوبرماركت كا هاتو وحربتا هاتو لقد أيكا ديسي دونتا إن شاء الله marka cashirkeenana sidaan ayuu u nidaamsan yahay sawirka ayaan soo dhigaa ingiriishkeeda Soomaaliga ay dhawaaqa iyo iyadoo jumlad wadato marka knives mindi sidaas dhawaaqeeda sidaas ayaa ugu dhawaaqi knife jumladana waa tana we use knife for cutting mindida waxaan u isticmaalnaa goynta mindida waxaan u isticmaalnaa goynta mindi markay badan tahay waa mindiyo Soomaho Englishkana markay badan tahay waa knives v waaye midaas waa mindiyo spoon qaado dhawaaqeedana waa aragtaa filaya spoon qaado we use spoon when eating waxaan isticmaalnaa qaado markaan wax cuneyno ayaan isticmaalnaa marka ay badan yihiinna waa qaadooyin luqada Soomaaliga Englishkana ay tahay spoons s ayaad ku dari mid dambo kuwa s lagu daro ayaa jirto iyo kuwa oo yar bedel maayan markay bataan friger ama frigidaire waxa dhahdidba ama talaajad waxa dhahdidba fridge keeps our food fresh friger waxay ka dhigtaa cuntadeena mid aan halaaweyn fridge waa frigidaire keepsna waxay ka dhigtaa our food cuntadeena fresh waxa halaaweynin marka friger waxay ka dhigtaa cuntadeena mid aan halaaweyn marka ay badan tahay fridge waa fridges marka ay badan yihiin ayaa la dhahaa jalmad ama kirli ama waxaad dhahdid ibreeq kettle sidaas ayaa loogu dhawaaqaa sida aan qoray oo dhinaca calaamada buluug wadato grandmother loves her kettle ayeeyo waxay jeceshahay jalmadeeda grandmother loves her kettle ayeeyo waxay jeceshahay jalmadeeda dixie luqada Englishka waxaa lagu dhahaa pot waa dixie marka ay badan yihiinna pots ayaa leedahay we use pot for cooking food waxaan isticmaalnaa ama waxaan dixie u isticmaalnaa cunto karinta we use pot for cooking microwave waa qoraydana oo istaajisani kartaa waana ku noqoni kartaa microwave is for heating food microwave waxaa loogu talagalay dib u kululeynta cuntada reheating waa dib u kululeyn ayaa la dhahaa reheating marka ay badan yihiin waa microwaves Soomaalina yahay microwave yo birtaawo luqada Englishka maxaa lagu dhahaa pan birta canjeerada ahaato tan kale ahaato mid godan waxay noqotaa pan ayaa leedahay we use pan when making pancakes waxaan isticmaalnaa birtaawo marka aan malawax sameyneyno when making ayaa laga rabaa forno luqada Englishka sida lagu dhahaa oven ayaa lagu dhahaa oven waa forno
Oven is for baking. Oven is for baking. Foorno waxaa loogu talagalay wax dubista. Oven waa foorno. Bakingna waa wax dubis marka burarka la dubayo waxay noqotaba. Sink. Sink af Soomaali nagula wadaag waxa ay tahay gacmo dhaqmiya mase qasabad waaye adiga. Sink baasha gacmaha ama alaabta wax lagu dhaqdo ayaa la dhahaa. The sink is clean. The sink is clean. Sinkiga waa nadiif adiga af Soomaali nagula wadaag. Baaquli luqada Ingiriiska waxaa lagu dhahaa bowl. waa bowl siday u qoran tahay le u aqrini bowl. The bowl is full of rice. The bowl is full of rice. Baaquliga waxaa ka buuxo bariis. The bowl is full of rice. Jumladooyinkan ayakana waxay ka caawini sida u isticmaali kartid ama maskaxda ayaaba kuu furiba jumladooyin kale adigaaba iska baran insha Allah. Erayada iyo jumladooyinka waa wax muhiim ah oo luqada ka dhisay mar walbo. Fork fargeedo. Fork siday u qoran tahay waaye. He is using a fork for eating spaghetti. He is using a fork for eating spaghetti. Fargeedo ayuu u isticmaalayaa cunista baastada. He is using wuxuu isticmaalayaa a fork fargeedo ayuu isticmaalayaa wuxuu isticmaalayaa cunista baastada. Bastamir af Soomaali waxa luqada Ingiriiska maxaa lagu dhahaa colander. Qoraalkeeda waa aragtina umaleeyaa marka ay d iyo h isla socoto luqada Ingiriiska da ayaa loo akhriyaa Soomaalidana da. We use colander when draining foods. Waxaan isticmaalnaa bastamir markaan cuntada miirayno. Tarmuush ama flask waxaa dhahdidba Soomaali ahaan waxaa u isticmaashid luqada Ingiriiska waxaa lagu dhahaa thermos flask ama thermos ayaa dhihi kartaa thermos flask. His thermos keeps the tea hot. Tarmuushkiisa shaaha wuu kululeeyaa mar walbo. Keeps maxaa laga wadaa wax oo ku haynaya camal. His thermos keeps the tea waa shaah. Saxan luqada Ingiriiska waxaa lagu dhahaa plate. They like eating from one plate. Waxay jecel yihiin hal saxan inay wax ka wada cunaan ama waxay jecel yihiin inay hal saxan wax ka wada cunaan. They like waxay jecel yihiin eating from one plate inay wax ka cunaan hal saxan. Marka su'aal yar ayaan isweydiinaynaa. Su'aashan ay tahay which one is a knife? Midkee mindi ah? Saddexdan sawirood casharkeena waaye hadda inta aan soo qaadanay. Jawaabta saxda waa tan haddaad heshay this is the knife. Tani waa mindida. Haddaa heshay oo dhahday adiga this is the knife. Aniga hadda waan kaa sii saxaya. Haddaa saxdana maasha Allah. Shahmiir ama shaqshaqo luqada Ingiriiska waxaa lagu dhahaa sieve. V-da iyo F-ta ha iskula wareerin. Hadda F-ta way fududahay sida hadday ahaan lahayd sieve ayaa dhihi lahayd laakiin V-da sieve ayaa u aqrini. Shahmiir ama shaandho ama shaqshaqo waxaa dhahdidba. We use a sieve for sifting flour. Waxaan isticmaalnaa shaqshaqo ama shaandho si aan u shaqshaqno burka. Sieve maxaa waaye shaandho ama shaqshaqo baalka burka lagu shaqshaqo adiga af Soomaali waxaa ku dhahdid comment-ka nagula wadaag oo maxaa dhahdaa sieve maxaa la dhahaa sidaan ayaa la dhahaa. We use anaka waxaan isticmaalnaa sieve for sifting flour.
glass waxay noqoni kartaa galaaska biyaha lagu cabo ama dhalo ayay noqoni kartaa. marka labada sawir way saaran tahay. glass Soomaali anaka dhalaan ayaan dhahnaa, bad luqada Englishka galaaska biyaha ama kan kalena waa la dhahaa. Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. Fadlan galaas biyo ah isii. Fadlan galaas biyo ah isii. Whisk aniga xurbin ayaan u aqaanaa, adigana maxaa u taqaanaa? nala wadaag, comment-ka nagula wadaag oo waxaa dhahdaa whisk maxaan dhahnaa? hibloowi hiblaay ayaan dhahnaa. marka whisk maxaa waaye? bahalka ukunta lagu xurbiyo ama mashaariyada ama burka waxay noqotaba ayaa la dhahaa. I am whisking the eggs. I am whisking the eggs. waxaan xurbinayaa ukumaha. marka meeshan waa jumladana erey fari badan ayaa ku jira oo ka barani kartid. marka isku day ereyga kugu cusub inaad meel ku qoratid, buug iyo qalin mar walba haysatid. tray waa saxanka alaabaha la saarto. af Soomaali waxa lagu dhaho, adiga nala wadaag, comment-ka nagula wadaag arday. maxaa dhahdaa? tray waa luqada Soomaaliga sidan ayaa anaka ku dhahnaa ama sidan ayaa la dhahaa. She uses a baking tray when cooking food in the oven. She uses a baking tray when cooking food in the oven. waxay isticmaashaa saxanka dubista marka ay wax ku karinayso foornada. baking tray waa saxankan foornada la geliyay ayaa la dhahaa baking tray. rolling pin waa bahalka burka lagu fidiyo ayaa la dhahaa, usha burka lagu fidiyo. ayadana sidoo kale af Soomaali wixii lagu dhahaa comment-ka nagula wadaag oo waxaa dhahdaa rolling pin sidan ayaa af Soomaali lagu dhahaa. She is using a rolling pin. She's using a rolling pin. waxay isticmaalaysaa usha burfidiska ayay isticmaalaysaa. She is using waxay isticmaalaysaa a rolling pin usha burfidiska. waa ficil hadda lagu jiro ay sameynayso. cup waa koobka shaahiga. cup ayaa la dhahaa. koob Soomaalina lagu dhahaa. cups ayaa dhihi markay badan yihiin, waa kaamilsan kartaa. I need a cup of tea. I need a cup of tea. waxaan u baahanahay koob shaah ah. tea maxaan dhahnay? shaah. cupna waa koob. jug waa jeeg ama garaafo waxa adiga dhahdidba. jug marka ay badan yihiinna waa jugs. ayadana sidoo kale jumlad waa ku isticmaali kartaa haddaad ku wareertay ama waa tijaabini kartaa. comment-ka waa nagula wadaagi kartaa. waana mahadsan tahay ilaa halkan hadda soo gaartay. fadlan haddaad kanaalkan ku cusub tahay subscribe saaro. YouTube-ka iyo TikTok-ta iyo ayadana sidoo kale Instagram-ka waa isku magac, waa naga soo raadin kartaa.